Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Success Academy. Fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe, una sheer garee asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay Word-ka. Waxaanu ku qaadanaynaa 4 qodob oo kala ah, ama qodobka koowaad oo ah sidaad Word-ka aad u soo saaran lahayd waxa la yiraahdo border ama xariiqmada calaamadaha geeska aad u saaran lahayd. Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa Word-keyga. kadibna waxaan ku qoranayaa magaca aan rabo inaan ku save gareysto. Waxaan soo kacsaday Word-keyga. Marka ugu horeysa waxaan soo gashanayaa qoraal iska sample ah oo waxaan qorayaa is equal 90 kadibna bracket ayaan furayaa, bracket ayaan xiranayaa. Waxaad aragtaa qoraal waxaan soo gashtay iska sample ah. qoraalkii ayaan waxaan ka dhigayaa markaasi mid badan oo kaleeto, sida ilaa waxaan ka dhigayaa markaasi 2 paragraph oo midkiiba 3 ka kooban. Waxaan u baahanahay marka qoraalkan calaamadahan geeska inaan soo gashto wax la yiraahdo border. Waxaan ku dhufanayaa halkaas ay ugu qoran tahay design. Aniga waxaan isticmaalayaa Office-ka 2021 ayaan isticmaalayaa. Waxaan ku dhufanayaa halkaas ay ugu qoran tahay design-ka, kadibna waxaan ka dooranayaa halkaan aad u jeedid page border ayaan ka dooranayaa. Page border markaan ka doorto, halkaan waxaa ii yaala wax la yiraahdo style, halkaana waxaa ii yaala wax la yiraahdo art. Aniga waxaan isticmaalayaa marka style ayaan isticmaalayaa oo waxaan ka dooranayaa calaamadani ama calaamadan mid gaar ah ayaan ka dooranayaa. kadibna waa inuu ku ahaadaa markaasi box, waa inuu ku ahaadaa. waxaan leeyahay marka meeshaan waa whole document inay ku ahaataa. kadibna waxaan leeyahay okay. sidaad aragto waxaad aragtaa hadda qoraalkeyga ama warqadeyda dhammaan inaan u samaystay border, calaamadan kusoo wareejiyay. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa art. badanaa waxaa loo isticmaalaa shahaadooyinka, invitationada marka la sameynayo ayaa la isticmaalayaa artiga. markaad isticmaalayso waxaad ku dhufanaysaa halkaasi. markaad ku dhufato waxaad kasoo dooranaysaa marka midka adigu aad ka heshay. aniga tusaale mid waxaan iska qaadanayaa markaasi iska tusaale ah, sida waxaan iska qaadanayaa oo kaleeto kan oo kale ayaan iska qaadanayaa. waxaad aragtaa hadda inaa calaamada sidan uu kaaga dhigayo. kadibna halkan ayaa ka yareyn kartaa, ayaana ka weyneyn kartaa. 12 ayaan ka dhiganayaa. kadibna waxaan leeyahay okay. waxaad aragtaa hadda inuu borderka ii soo galay oo sidaas aan ku isticmaalayo markaasi borderkeyga. borderka waan saartay. sidee ugu qaadi karaa marka aniga ma u baahnay, waan saartay. borderka haddaad rabto inaad ka qaado, waxaad tagaysaa isla meeshii design ay ku qornayd, kadibna waxaad ka dooranaysaa page border. markaad ka doorato waxaad kasii dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay none, kadibna okay ayaad leedahay. waxaad aragtaa hadda inaad page border aad saaratay misena aad ka qaaday. qodobka xiga ama cashirkeena qodobka labaad ee aan ku qaadanayno waa watermark. sidee u saaran kartaa warqadani, maxaa cadeynaynaa adigu leedahay in kaleeto. watermark sumada ka dambeysa qoraalkaada sidee ku saaran karaa. waxaa ku dhufanaysaa isla design-kii, kadibna waxaad ka dooranaysaa halkaan watermark. markaa ku dhufato wuxuu kuu soo saarayaa qaybta sidaan ah. kuwani asiga ayaa ku samaystay oo waxaa sitaa Office-ka confidential-ka oo sidaan u qoran. marna sidaan ayuu kugu qorayaa, marna sidaan, marna sidaasi. kana waad isticmaali kartaa Adobe Cube oo sidaan ah. laakiin aniga ma rabo, waxaan rabaa inaan isticmaalo custom watermark aniga magacayga ah. custom watermark waxaa la yiraahdaa waa adiga markuu magacaada u yahay. tusaale qoraalka ayaa waxaan ka dhiganayaa markaasi check ayaan saaranayaa. waxaad saaran kartaa picture, waxaad saaran kartaa qoraal. aniga qoraalka ayaan ku hormarayaa. waxaan ku dhufanayaa halkaani, kadibna waxaan ku qorayaa meeshaasi Success. kadibna haddaad rabto meeshaan auto color-ka ah waxaad ka dooran kartaa size-ka. sidoo kale meeshaan fartaada waa green style oo waxaad ka dhigan kartaa markaasi mid madow ah ama color-ka rabto ayaad ka dhigan kartaa. marka apply inaad dhahdo, okay aad dhahdo, labadaas waa isku mid. okay haddaad dhahdo, apply haddaad dhahdo. waxaa aragtaa hadda meeshaani Success Academy inay ku qoran tahay. warqadaas hadda haddaan dhaho print preview ama qaybta daabacadda haddii aad geyso,
warqadaada waxay kusoo baxaysaa sidaas aad u jeedid oo magaca Socrates ama academiyada ka shaqeyso ama organization aad ka shaqeyso magaciisa sidaas ayay usoo baxaysaa warqada u dul saaranaysaa. Warqadaasna waxay cadeynaysaa qofka ka soo baxay magaciisa iyo qofka uu yahay ayay cadeynaysaa. laakiin warqada haddii sidaas bilaa watermark aad ku daawacdo adigoo international ah waxay noqonaysaa warqadaada mid priceless ah oo dadkoo dhan ay iska koobiyeystaan. Sidee baan ugu qaadi karaa watermark anigoo saaray? Waxaad ku dhufanaysaa watermark kadibna waxaad ka dooranaysaa remove watermark sidaas ayaad ugu qaaday. Waxaan rabaa qodobka kale ah ayadoo sawir inaad saarto loogada organization aad ka shaqeyso ama academiyada waxaad ku dhufanaysaa watermark kadibna waxaad ka dooranaysaa custom watermark kadibna waxaad jeega saaranaysaa business picture watermark kadibna waxaad leedahay markaas select picture. Aniga waxaan qaadanayaa marka wake offline. Wake offline wuxuu yahay computerkan ee kala soo dhaxbaxdo sawirka adigu aad u baahan tahay. Aniga waxaan ku dhufanayaa hata pictures ayaan ka dooranayaa kadibna waxaan iska soo qaadanayaa picturedeeda meeshan ku jiro mid ka mid ah ayaan iska soo qaadanayaa sida tusaale sawirkan aan hadda ka qaado kaleeto xogta aan diyaariyay ama midkan ayaan iska qaadanayaa kaliya ku siinayaa kadibna waxaan leeyahay insert kadibna waxaan leeyahay okay markaan waxaa aragtaa sawir yar inuu meesha ku jiro Socrates Academy. sidoo kale kalar hadda aad ku daawacdana caadi ayaad u arkaysaa sawirka loogada halkaasi. asigana waxaad ugu qaadaysaa watermark haddii aad rabto inaad ka qaado sidii kii hore camal halka ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaad leedahay remove watermark sidaas ayaad ugu qaaday. sidaan ognahay hadda xogtayda way ii save garaysan tahay weliba magac ayaa igu qoran password laakiin iguma xirno. waxaan sameynayaa control s ayaan leeyahay saan u save garaysto waana ka laabanayaa ama save ayaan leeyahay. markaan ka laabto waxaa aragtaa qoraalkayga hadda ama wordkayga inuu si caadi ah igu soo kacay ayadoo wax password ku xirnayn. sidee marka password aan ugu xiri karaa? marka aan rabo inaan password ku xirto waxaan ku dhufanayaa halkaas ay ku qoran tahay file kadib waxaan ka dooranayaa meesha ku qoran tahay info markaan ka doorto waxaan kasii dooranayaa protect documentigaas ayaan waxaan rabaa marka inaan protect garaysto kadibna halkaas ayaan click ku siinayaa kadibna waxaan ka dooranayaa wax la yiraahdo encrypt with password kadibna waxaan gelinayaa halkaasi passwordka aan ugu talagalay kadibna wuxuu ku leeyahay markaasi encrypt with the context of this page mar labaad geli password karba enter kadibna waxaan leeyahay markaasi waxaan aragtaa meeshaan password is required to open this file kadibna waxaan u raacinaysaa wax la yiraahdo save gareynayaa kadib waan ka laabanayaa. hadda markaan rabo documentiga inaan furo waxaan ku qasbanahay inaan password aan geliyo. sidoo kale passwordkii ay hadda ku xirtay waxaan gelinayaa documentiga waxaan ku qasbanahay inaan geliyo passwordkii aan ku xiray si documentiga u furto. kadib passwordka markaan geliyo waxaan leeyahay waxaad aragtaa hadda inuu documentiga isoo nabad kacay. sideen ugu qaadayaa marka passwordka sideen ugu remove garan karaa? waxaad tagaysaa file kadibna info ayaad ka dooranaysaa waxaad ku laabanaysaa meesha encrypt with password ayaad tagaysaa kadibna passwordkii aad gelisay ayaad ka tirtiraysaa waxaad leedahay markaasi kadibna save ayaad u raacinaysaa. hadda documentigaas waxaa loo save gareeyay si bilaa password ah. waan furaynaa waxaad aragtaa inuu wax password aysan weydiinaynin. qodobka ugu dambeeya aan ku darayo wuxuu yahay waxa la yiraahdo restricted. haddaad soo gasho qoraalkani waxaad aragtaa waad tiri kartaa sidaas la mid ah waxaad ku bedeli kartaa qoraalo kaleeto waxaasoo dhan waxaan rabaa ama waxaad ku dari kartaa qoraal adiga ku gooni ah waxaasoo dhan inaan xiro ayaan u baahanahay. waxaa la yiraahdaa restricted. waxaan ku dhufanayaa marka file kadib waxaan ka dooranayaa markaasi info markaan ka doorto isla meeshii passwordka aan ku xiray ayaan ka dooranayaa. marka aan ka doorto waxaan ka dooranayaa markaasi restricted editing. waxaa la yiraahdaa inaad adigu controlsho hadduu qof uu rabo inuu wax uu ka bedelo ama wax uu ka deleedo. click ayaan ku siinayaa. click markaan ku siiyo waxaan jeega saarayaa qaybtan ugu horeysa oo limit ah. sidoo kale hadana waxaan jeega saarayaa qaybta labaad. marka aad jeega saarto waxaan u gudbayaa marka qaybta ugu hooseysa oo ah oo password aan ku xiray
oo waxaan leeyahay markaasi yes start enforce protection. Kadib wuxuu leeyahay password gasho oo waxaan gelinayaa passwordka. sidoo kale qaybta ugu hooseysana waxaan gelinayaa markaasi passwordkii aan kor geliyay. hadda marka qofka hadduu yimaado ma tiri karaayo. hadda haddaan isku dayo inaan wax qoro ama aan deleedo, qaybtan hoose fiiri waxaa ku qoran you can't make these changes because the selection is locked. qoraalkaas wuu xiran yahay. qofka keliya wuxuu ka naqanayaa daawade uu daawanayaa, waxba kama bedeli karaayo, waxba kama tiri karaayo. sidoo kale haddaan ku save gareeyo oo aan ka tago oo hadduu qof imaado oo sidii u isticmaalo way xiran tahay. waa kaasa maxaa aragtaa haddaa wax isku day inaad qorto ama aad deleedo wuxuu kuu soo saarayaa qaybtan restrict editing-ka ah, wuxuuna ku leeyahay waa la bedelay waa la xiray. sideen u joojinayaa marka stop protection de kadib waxaad gelinaysaa passwordkii kadibna iska cancel calaamadan qaybtan geesaa. hadda haddaan isku dayo xitaa inaan deleedo waa kaa uu deleedmaya. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar, gabaleelkana furaysa ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe, una sheer garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.